حق قرآن كيدا والقرآن كهرانو ورشريعتنا هم وردينتنا هنكو عمل فلو وردينتنا هنكو دقنو وردينتنا أمدا هنبرنو وردينتا دد كادغيسا قرآن كو دد بو كادغ دد دمرka ta ugu khayr badan buu nabigu dhawaatay wax ka farxiyay kula hadlaysa wax ka farxiyay maqashiinaysa wuxuu ku farxo ayay tusaysa hadii uu amrana amarkiisa way adeecaysa hadii uu ka tagana uu ka maqnaadana iyaduna way dhoorsoonto way ilaalsan tahay oo way is ilaalinaysa oo meel kale tagi mayso wixii hantiya biyo u dhiibtan waa u ilaalinaysa buu rasuulku yiri ninka yaraanta ku soo bilaabay cibaadada boqol haduu gaadho daadiisu aqligiisu waa taam boqoliyo konton haduu gaadho aqligiisu waa taam 200 haduu gaadho aqligiisu waa taam laakiin bila cibaado qofka haduu ku barbaaro 60 jir haduu gaadho maskaxdiisu waa isku daadataa shanqari qalow birba ka dhashan qari kalaxaadka loo dhameystiray eeg deena ilaahay xasuuso kalaxaadka laga naaqusay eeg deena ilaahay xasuuso kacad eeg deena ilaahay xasuuso ka madow eeg deena ilaahay xasuuso ka faqiirka eeg deena ilaahay ku xasuuso ka xanuunsan eeg deena ilaahay ku xasuuso ka ubadka la siiyay eeg deena ilaahay ku xasuuso ka bila ubadka laga dhigay eeg deena ilaahay ku xasuuso khalqigan oo dhan waxaad ka dhaxarkaysaa ilaahay aayatiisa bad ka dhaxarkaysaa أربع فقرايا أربع أغنيايا أربع عافمان لغو ديقي أربع حنون لغو ابتليي أربع فقر لغو امتحامي أربع أولاد الله هجاجيي أربع أولاد لغبيي أربع وحبرشد الله فري أربع وحبرشد لغو أتكيي أربع إسلام لماذا إلهي قل الله ديستي أرنا قال لماذا إلهي قدره قال لما يكون من أيام أقولت مر الدينينو وانبرانينا أقول إيوه الله برتاني مدينينو لكن waxaan u baahanahay qofka wax baranaya inuu marka hore uu noqdo qof Ilaahay sayaqaana dhakhtar Ilaahay yaqaana injineer Ilaahay yaqaana taajir Ilaahay yaqaana mas'uul Ilaahay yaqaana faqiir Ilaahay yaqaana aqil Ilaahay yaqaana ogaas Ilaahay yaqaana waana noqoto qof Ilaahay yaqaana waxa laga yaabaa dadka u shaqeynaya oo dhan inay jaamacada ka soo baxeen isagana inuu jaamacad soo dhigtaan laga yaaba laakiin amaano qofka inuu yeesho inuu ballan buuxiyo uu noqdo inuu rusheego uu noqdo inuu cadaalad falo uu noqdo inuu tabiicad wanaagsan uu noqdo ma dibloom bay u baahan tahay mise iimaan bay u baahan tahay bal ii sheega الحمد لله الذي خلق فسوى قدر فهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صنائع المعروف تقيء ميتة السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله كلغن كهدلايا kala la hadlaayo intuba waxaan u baahanahay ma aragtaan inaka ilaahay u baahan ilaahay inaka u baahan diinta islaamkana inaka u baahan kalluunka noloshiisa ilaahay wuxuu dhaxgeliyay waa biyaha dhaxdooda weeyaan haduu biyaha ka dhaxbaxo uu dhimanaya bani aadamkana cizigooga sharaftooda
aakhiradooda adduunyadooda meeshay ku hagaagaysa ilaahay waxa uu ka yeelay waa diin hadday diinta islaamka dadku ay ka dhex baxaanna way dhimanayaan marka kulligan innaka u baahan ilaahay innaka u baahan salaadan tukanay innaka u baahan diinta inaan maqallo oon isku baraarujinno oon ka wada hadallo innaka u baahan rasuulkeenni udgoona calayhi salaatu wassalaam ibnu mascuud radiallahu canhu ayuu ku yidhi qur-aanka dusheeda ku akhri waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa ardaydiisii ka mida ka dalbanaya qur-aanka inuu dushiisa ku akhriyo marka cabdillaahi bnu mascuud radiallahu canhu wuxuu yidhi aqra'u calayka wa calayka unzil yaa rasuula allah maadaan dushaada qur-aanka ku akhriyaa qur-aanku aduuba kugu soo degee waxau nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu ugu jawaabay innii uxibu an asmacahu min hayrii qur-aanka waxaan jecelahay inaan dadka kale ka dhagaystee dusheeda ku akhri buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qur-aankuna waa wacdigii ilaahay waa bayaankii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu khalqigiisa u jeediyey weeyaan haddii qur-aanka dushaada lagu akhriyo ama qur-aanka adigu aad akhrisanaysid ama meel ilaahay wacdigiisa lagu hayo aad maqasho waxaad ogaataa qur-aanku waa wacdiga ilaahay waa wacdi waa bayaan waa balaaq hada balaagun linnaas waliyundaruu bihi waliyaclamuu annamaa huwa ilaahun waaxidun waliyadakara ulu lalbaab hada bayaanun linnaas qur-aanku waa bayaan waa mawcido markaad qur-aanka akhrisanaysid ama qur-aanka dushaada lagu akhrinayo waxaad ogaataa bayaanka ilaahay uu khalqiga u jeediyey ayaa adiga dushaada lagu akhrinaya marka nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam waxa ugu jawaabay ardaygiisii innii uxibu an asmacahu min hayrii waxaan jecelahay qur-aanka dadka kale inaan ka dhagaystoon ka maqlee dusheeda ku akhri buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam faqara'tu calayhi suurata annisaa suuraddaasaan dushiisa ku akhriyey buu ihi nebiga dushiisa ilaa laga gaadha aayaddaas fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida markaan halkaa uu maraayo ayuu nebigu yihi xasbuka al'aan hadda qur-aanka halkii aan rabay aad gaadhsiisee intaasaa igu filana jooji buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam waxaa kugu fillaatay intaas deedna saxaabigii wuxuu yihi nebiga ayaan xaggiisa daymooday waaba nebi maxamed sal allahu calayh wasalam oo labadiisaa indhood maaragtaan ilintu ay ka daadanayso innaku maanta qur-aankii waan maqlaynaa wacdigii waan maqlaynaa laakiin isbeddelkii uu yaryahay aayad qur-aan uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dushiisa lagu joojiyey ayaa nebi maxamed uu la ilmeeyey fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin xaalku sidee buu ahaan doonaa maalinka qiyaamaha markaan ummad walba aan keenno iyada iyo nebigeedii oo maragga ku furaya inuu diintii risaaladii uu gaadhsiiyey adigana markhaati aan kuu soo joojinno xaalo aad ku marag furi doonto ummaddaada inaad diintii aad gaadhsiisay ana nebigeennu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ayuu tadabburayay qur-aanka ayuu ka fikiraya qur-aanka markuu akhrisanayana uu ooyi jiray oo caaisha radiallahu canha waa tii tidhi salaataleylka markuu nebigu tukanayo rakacad keliyuu nebigu ku tukanaya suuratu lbaqara iyo ala cimraan iyo suuratu nisaa sarajoogga dheeridiisa ayaa nebigu lugihiisu ay bararayeen deedna markaabay ku tiri lima tasnacu haada yaa rasuula allah yaa rasuulallah maxaa sida naftaada aad ugu kallifaysaa
ilaahay adiga macsuum buu kaa dhigo dembigii horena waa kaa dhaafay kii dambena waa kaa ilaaliye markaa buu nebigu ugu jawaabo wuxuu ku yidhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura miyaanan jeclayn inaan ahaado aniguna addoon rabbigiisa ku shukrinayo ku mahadnaqaya aayad ka hadlaysa ilaahay tansiihdiisa hadduu marana nebigu ilaahay buu nasahayay aayad ka hadlaysa maaragtaan ee jannada hadduu dul marana jannadu ilaahay weydiisanayay aayad naarta ka hadlaysa hadduu nebigu iskor taagana naarta ayuu ilaahay ka magan galayay aayad ka hadlaysa ilaahay weynigiisa hadduu marana ilaahay buu nebigu weyneynaya calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a salaadii subax ayaa la gaadhay sunnaha nebigu sal alla alay wasalam aqalladiisu ku soo tukani jiray inaku maanta salaada farad iyo sunnaba waxaan la imanay maaragtaan waa masaajidii aqalladeennii nasiib maxaan u yeelnay salaada sunnada salaad sunna ah uu qofku tukada buu nebigu xadiid ku yidhi salaadu qofku aqalkiisa ku tukanaya ayaa ugu fadli badan ilaa salaada faradka mooyaane salaada sunnayaasha sunnaha ugu fadli badan waa sunnahee waa sunnaha lagu tukado xaafadaha faradka mooyaane faraa'idana masaajidda loogu talagalay sunnadana waxaa fadli badan sunnaha aqalka lagu tukanayo si aqalkii uu noqdaa aqal masaajidka cilaaqo la leh da aqalka salaada lagu dhex tukanayo oo qur-aanka lagu dhex akhrisanayo oo dadka aqalka jooga mar walba ilaahay ay aqalka ku dhex xasuusanayaan oo aakhirada ay aqalkooga ku dhex hadal haynayaan aqalkaasi wuxuu noqonayaa kalmasjid laakiin aqalladii haddii aanan ilaahay lagu dhex xusaynin salaadna aan lagu dhex tukanaynin diinna aan lagu baranaynin waxau noqonayaa aqalkaasi qabri bannaanka dul yaaluu noqonayaa laa tajcaluu buyuutakum maqaabira aqalladiina qabuuraha ka dhigina buu nebigu yihi sal alla alay wasalam imaam atirmidi raxmatullaahi calayhi wuxuu yidhi aqalka haddaanan salaad lagu dhex tukanaynin salaadee laga wadaa marka haweenkuna farad iyo sunnaba inay aqallada ku tukadaan baa u fadli badan raggana faraa'idana inay masaajidda ku gutaan sunnaha ay tukanayaanna sunnaha ugu fadli badan buu nebigu yidhi waa kay aqalka dhexdiisa maaragtaane ay la tegeen aqalka ku soo tukanayaan haddaan aqalka salaadba lagu dhex tukanaynin qur-aanna lagu dhex akhrisanaynin diinna aan lagu dhex baranaynin ilaahay tabaaraka wa tacaalana aan lagu dhex xasuusanaynin aqalkaasi wuxuu yidhi imaamkaasi waa qabri bannaanka dusheeda ka dhisan dadka ku dhex jirana waa dad dhintay la mid yihiin buu yidhi meesha laga dhintaa laga noolaada ma aha jirkan dhimashadu runtu waa ta qalbiga weeyaan qalbiga marka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sunnaha wuxuu ku soo tukanaya aqalladiisa salaada faraa'idana wuxuu la iman jiray masaajidka dadna bilaal baa nabiga u tago ku yidhi yaa rasuul allah salaadii baa taagan oo jamci way ku sugayaan markaa buu nabigu soo kacay calayhi salaatu wasalaam isagoo indhihiisa ay lilmadu ka daadanayso meeshuu nabigu ku sujuudayana ay ilintu ay qoysay dadna markaa buu nabigu ku yidhi yaa bilaal xalay toole aayadahan qur'aanka ayaa dusheeda ku soo degay waylun liman qara'aha walam yatafakkar buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam aayadaha ninka akhriya ee aanan tadabburin ee aanan ka fikirin ee maskaxdiisa aanan ka shaqaysiinin uu hoogay buu nebigu yidhi uuna khasaaray qofkaasi awaakhira suuratu aali cimraan soo ma hayn أواخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آياتهاس دوشيدا كسو دغاي بو نبيgu xalay toolay آياتهاس آياتhu maxay ka waramayaan markaas إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار سماواتك يا راجينتا abuurkooda iyo habeenka iyo maalinta isgadaal maraya isbeddelaya iska xaynaya maalintii baa joogtay habeenkii baa imanaya
maalintii baa tagaysa maalintii baa imanaysa habeenkii baa tagaya nolosha adduunka dhanba waa habeen iyo maalin isbedelaya bal wax u dhaxaya sheeg wax saddexaad ma jira oo habeen iyo maalin hadday habeentaas aad u noolaan lahaydna nabi maxamed baa kuu jideeyey sallallahu alayhi wasallam hadday maalin ay tahayna saad maalinta u gudan lahayd aad noloshaada u gudan lahayd nabi maxamed baa kuu jideeyey dadna samaawaadkan eeg ilaahay u dushaada uu dhigay oo dhulka eeg oo khalqiga samaawaadka lagu dhex abuuray fiiri dadna ilaahay xasuuso yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan ilaahay bay xusayaan iyakoo taagan iyaka oo fadhiya iyaka oo jiifa oo maxay leeyihiin rabbanaa maa khalaqta haadaa baatila ilaahu cirkan iyo dhulkan iyo khalqigan dheeldheel umaad abuuran bay leeyihiin subxaanaka ilaahu xumaan adaa ka hufan nuqsaan adiga ayaa ka hufan ee faqinaa cadaaba annaar ilaahu cadaabka naarta naga dheeray oo naga badbaadi bay ku ducaysanayaan 24 saacadood ka soo maraysa bal saacad walba hal saaco saacadiiba hal mar ilaahayna xasuuso aakhiradana xasuuso waa noolaan meeshaad ka noolaanaysid qalbiga noqon ogow meesha dadku ay ka dhintaan ama ay ka noolaadeen waa qalbiga marka natadabbar waa inaan ilaahay xasuusanaa mar walba فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قرآن كما يسن فيرين بإله إليه بس قلوب توضع يا قفلا وقرآن كما حكا ورميا نبأ ما قبلكم بك ورميا وحلي وحي إنه الرجي نبي آذن أبور كيسي إلى جوجد هذا ما تأدبيد وحي دعيب القرآن كما ورميا والخبر ما بعدكم وحلي وحي أدونك إن قدم بيد بدي قداش إيمان دونا أي قرآن كما ورميا والحكم ما بينكم إنك دحدي نبي قولي هي وحي أد حكم أد دحدي نقبه نيدان حديت حق ولالك أد كل هيد حديت حق جارك أد كل هيد حديت حق أبهاك كلها حديت أدوك حق والدك أد كل هيد حديت مسؤولك الرعية حق أي كل هيد حديت الرعية مسؤولك حق كلها قرآنك وحاسو دمك ورمايا هو الفصل ليس بالهزل وفصل وحكم إلهي حقي سكيم إذا كفت القرآن كوي دار المقلة آخر سكي سوى عباده إيجدي سوى عباده كودغن كي سوى عباده برشدي سوى عباده بردي سوى عباده فدينتي سوى عباده حكم كي سوى عباده من عمل به أجر نيجا قرآن كو عمل فلا أجر با إلهي وقريا ومن حكم به عدل نيجا قرآن كو متكو حكمنا وعدالة فلي ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن قال به صدق نيجا إلى القرآن كسدا يري ربو شاقي ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم نيجا دتك أبوية حق قرآن كإذا والقرآن كهرانو war shariicadeena han baranno war diinteena han ku amal fallo war diinteena han ku dhaqanno war diinteena umada han barno war diinta dad ka dhigaysa quraanku dad buu ka dhigay dad waman daa ilayhi hudiya ila siraatin mustaqim nika dadka quraanka xaqiisa ugu yeera dariiqi mustaqimka ku dhacay baa iyuu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka quraanka ilaahay la siiyay ummadii quraanka ilaahay naga dhigaynaka nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam oo keligii meel fadhiyo jibriil ag taagan yahay ayuu nabigu ka maqlay xagga samada shanqad sawt markaasuu argagaxay jibriil buu nabigu weydiiyay alayhi salaatu wasalaam jibriil baa ku yiri albaab samadu ay leedahay maanta la furay maanta ka horna albaabka lama furin samada malag baa ka soo daadagay maanta malagaasi maanta ka horna adduunyada muusan iman albaabkana maanta la furay malagaana maanta adduunka yimiday
ملقي النبي صلى الله عليه السلام مرقى سيد أبشر بنورين أوتيتهما يا محمد لبن نور بانكوس دا يا إلهي يبكى سودي ببشارة سبا لغو يري إمسان نور لبن نور لم يؤتهما نبي قبلك أذيك هورت النبي لبدا نور إلهي أوسيه ونصيبه يشان مجرم بلغو يري خواتم سورة البقرة وسورة الفاتحة لبدا عدود البقرة وقدم بيسا أما سورة البقرة أواخر كذا هي سورة الفاتحة واللبا آيات واللبا إلهي والنبي محمد وكسيي خزائن عرشك هو السيدة تعالى إن الله فريب النبي قال له صو صاري قرآن كريم كل ملائكته أي صودان ayaa laga daba keenay dana markaas baytul izz la dhigay malab ayaa si gaar ah intuu nabi maxamed ugu yimiday labada u keenay oo kule abshir bi nuurayn utitahuma bishaarayso laba nuur ba ilaahay ugu ka soo dhibo adiga lagu siiyay adiga horta nabi nasiib u yeeshay in la siiyana ma jirin waa labadee khawaatim suurat al-baqara iyo suurat al-fatiha weeyaan xaraf kamida ilaahay baahidaada إلهي باهدا هذا حرف كمده إلهي كما ويدي ستد خير الدنيا خير آخرة واحد دون يسد إلا إلهي وكو أقبل دعاء والله وصياب الله يريد كدو عيسو باهي ملهن الباهي ملهن ملهن يا باهي وان بوحنا سوما هذا باهي هذا وكان كدو عيسو حد ملك لأنه هو تاقي sanadkiiba dhowr kun baa jaamacada ka soo baxaysa diblomkan shahaadadan aad gosha lagu soo galiyay ilaahay ku dhaweyn mayso ogow ilaahay waxa ilaahay aad ugu dhawaanayso waa quraankaas waxa xaajadaada lagu daboolay waa quraankaas waxa adduunyadaada iyo aakhiradaada kugu hagaagayso waa quraanka raac quraanku dad buu ka dhigay dad حرف كمذا بالنبي قال ويري إلهي تبارك وتعالى كم بردد وباهد هذا إلهي وكم الشيكتد إلا هي وحي خير الدنيا خير آخره هذا إلهي ويدي ستيت كو الله بردي لبدا حروف تود حرف كمذا هذا إلهي كم برده إلهي دعاء وكا أقبل والغصيم النبي قال ويري صلى الله عليه وسلم بلايا سو سعوتا كدو عيسى سورة فاتحة إلهي كبري نو الشبا عريري كبر نغطي سورة كبري إلهي كدو عيسى مراد بالله إلهي كدو عيسى أواخر سورة البقرة إلهي كويد السماء دادا الباب إلهي قراع حقوصا إما قدرت الزمن كان قوس بعد شبا أو قوسنابا ولا أنت أو سنة تكنيي حبايي ما بيريان يكون بيريان دعاء ستد صدحوا بدعاء مدو دعاء إما بلايك وصوص عطين لقاقا دبالو لقاقا لحيو إما إن الدنيا دنوحي الله عاد ويدي ستي إلهي عاد كسيو إما إن آخرك لقوقو دقو آخر لقوقو دقو دب لقوقو دقو القرآن كنا مركز دي بقول نقولنا إن شاء الله هذا القرآن كنا برانينا القرآن كان تدبر يتفكر كو آخر سنة صحابة الرسول رضي الله عنهم القرآن كان سيكون راعين إمام بكدك القرآن كإمام بقى هديته عبادة هديته أخلاق هديته تربية أولاد هديته سيدا مجتمع لولا دقمي هديته سيدا قيس لولا دقمي هديته قرآن كابر راعين يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتدبرون عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضه
أدب قرآنك أفير سنجر موقتها مسكيت النبي عليه الصلاة والسلام وهابين سوق عليه ساعده الدنبه أمير إسقوطه لأنه مسؤولة وأمة كم مسؤولة وعبادتي فرائضها يدمتون مال صاري ولي بكل دلايا إنه النوافشنا ولي مدو اسمه هبانكي بحود هبانكي هدان سيحدنا حق إلهي يقول هابان ضيعيا مالكي هدان سيحدنا حق أمد يقول هيد من ضيعيا بولي أمرك إلا أرجع عمر بن الخطاب ومسكيت كالنبي مركو فريستبع أردو دعا أردو دعا يا رئيس يا أمير المؤمنين وادى شيء سيحبا اللي يقولي مركاسو لهبانكي هدان سيحدو حق أمد يقول هيد من ضيع حق إلهي يقول هابان ضيعيا لأن مؤمنك هبانكي إلهي يقول مناجودا إلهي ببريا مالكي هدان سيحدن أبو يري حق أمد يقول هيد من ضيعي بيدي اسمون إلى هذا الحد عبادتي سحبينك إلى سنة يبوها حبين هذا كمدوا صوق لمساجد النبي صلى الله عليه وسلم وحوارك ير شابة وقيام الليل كأتاقنا القرآن ككرو قادايا والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إلى لقى قال إن عذاب ربك لواقع إلهي ودارنا كورا دارتي مركي دعضي وحلاه لي إن عذاب ربك لواقع آيات عمر مركو مغلبا ليدي مركو كدعي الله قاضي أقل كان لقيي لباتن مالمود مدة كدوب حنون صنابا ليدي حنونك سببت الله حنون صدن لغما ورقبينه آيات القرآن كآيات قلبي ستابتي بليدي عمر الفاروق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أي النبي قوي مدرسه أويا مالين يا أبا بكر ما أنت محل له سايشك مركز سوري نبي الله صورة دنا كوكو صور دكتي لبدا آيات أودن بيسايقو إني سبولي وأحبك كميتك لبدا آيات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مثقال ذرة واحد شبه هذا وقبته وحا أغير أركته وخير انت قفك السماية مالك قيامها أبالك وهلي دونابا إلى هيدي انت ايهاقو الدنبي والشر قفك السماينا آخرا وهلي دونا ماركتاني أبالك وهلي دونا أبي بكر الصديق وحا أوليه هي لبدنا هذا السورة وقدم بيسا وحبك ميتقين بالنبي الله سين مركا كبت بادينا مركا أبو النبي يقول يا أبا بكر والذي نفس محمد بيده إلهي بان كل دارتي برسولكم يري الله نفت محمد أي قعنتي سكجرت أيان كل دارتي لو لم تذنبوا حديد ببوسن اللي قد عين ودنب الدب كدعي أنا أهين با لذهب الله بكم إلهي انتو أدوية إنك كحيو إني قادو أيا إلهي وحاو كين لها دون وحو إلهي كين لها أرمى دو الشيدة دنبي انتو دنبي كدعو أي دنبي السميان إلهي دنبي داف أي ويديستان وإلهي دنبي وقو دافو كواسا إلهي كين لها برسولك كيولي حبسيدي مركي كبدت أيا نبي وحديثة كو أخرنا يا بلسدي مرنا أي نحريست إلهي أيسان وقوسا وحلي وحي الدنيا دوشي ذا كأركان ورن آخرة كده حركين يوك لأن تابعين تبوها صلة ابن الأشيم رحمة الله عليه ننوحوها ودأدي سنتي ويناتي اعتزال بوسمي اعتزال ومحي يعني مجتمعي بكدح بحي عباد مركا وتفرقي مالكينا الصيام حبينكينا القيام مالكينا الصوم حبينكينا صلاة الليل marka nin adeer waaba u yimid oo ku yiri inantaydii baan ku siiyay waana ku dhisayna wala soo qaaday magaaladii baa la keenay gabadhii baa loo meheriyay
markaasay lawniga waa nin caabudu cibaado badan dharna ma haysto markaasaa lagu yidhi qolka xamaamka galoo meydha baa lagu yidhi dharkaa jadiidkana soo xidho markaasuu soo maydhay dharkiina uu soo xidhay cadarna uu soo marsaday gabadhii markaa caroosadii baa la yidhi waata qolkaa ku jirtee dee caroos baa tae orodoo halkaa ku hoyay baa lagu yidhi salafku habeenka ugu horraysa ee leylatu zafaaf waxaa hadyigooga ka mid ahayd inay gabadhuna weyse qabto uu ninkuna weyse qabo qolka caroosaddu ay fadhidana markuu cariisku ugu galo inuu assalaamu calaykum markuu yidhaahdo inuu 2 rakaca uu tujiyo iyada nagu sidaa ma samaynaa yaa haleelaba qola kaamera wadatayna haysatabe soomahinde laa ilaaha illa allah wataan arkayna dhalinyar halkaa buuraha hoostooda taaganoo yaa leeyta war zayigii islaamka un balmaan qaadana maxaa kuu diiday zayigii islaamka inaad cimaamad madaxa saaratid oo qamiis aad qaadatid maxaa kuu diiday sunnatu caada xataa caadadeennii waxaad moodaa inay maalinba maalinta ka dambayso ay ka sii dheeraanayaan dhaqanka islaamka leylatu zafaaf saxaabada rasuulka iyo dadkii wanaagsanaa 2 rakacay iyuu ninku reerkiisa uu tujin jiray waxay ka dhigan tahay maanta laga bilaabaa mas-uuliyaddii aabbaha iyo hooyada saarnayd anaa kala soo wareegay noloshaada adduunyadaada iyo aakhiradaada anaa kuugu imaama ana waxaan diyaar u ahay bay ka dhigan tahay ilaahay taacadiisa iyo taacadda nabi maxamed inaan kugu hogaamiye sida 2 rakaca aad igu daba tukatay haddeeto aniga ii daba joog bay ka dhigan tahay sidaasay ka dhigan tahay للنبي وكيلها خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك دمرك توقو خير بدن بالنبي قدواتي واتمرك ونكي قد يموضو كفر حساب رسولك يلي هدو الله الله هذا وناك سنبي كولها الله يساع هدو إيقنا وكفر حليسا وحكفر حيه كولها الله يساع وحكفر حيه مقشينيسا وحكفر حيه تصيسا هديو أمرنا أمر جيسا ويأضيع عيسا هديو كتغنا وكمغنا لنا يدنا ودور صوته وإلى ستحي وويس إلى علينا يسا ومالك نتاقي ميسو وحي هنتيا ديو وديبتن وإلى علينا يسا برسولك يلي marka labada rakacadood ee sunnaha gabadha habeenka la tujinayo waa hadigii saxaabada waa hadigii salafka waxay ka dhigan tahay hadeeto la adiga ana ku imaama ana taacada ilaahay iyo taacada nabi maxamed baa kugu hogaaminay sida salaada aan imaamka kugu ahaa maanta laga bilaabo noloshaada aniga ku imaamay daba joogsay ka dhigan tahay hada marka salaada la tujiyo ayaa waxa sunna halka fooda in la qabto fooda ducada lagu akhrinaya اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليها سمعين خير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه waxay ka dhigan tahay waxa ducada macnaheedu waa maxay ilaahu haween gabadan khayrkeedana waan ku weydiisanayaa khayrka aad ku abuurtayna waan ku weydiisanayaa sharkeedana waan ka magan galay sharka aad ku abuurtana waan ka magan galay halka fooda maxaa loo qabanayaa fooda waxa ku taalabay culimadu leeyihiin waa dhaakirada qofka bini aadanka xasuusta waa meesha laga xasuusto tan maxaaskaagiiba mise waa hooyada هذا كلا قرون وذكر ورا لبضع سو خطر معه وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها لذلك إلهي قرآن وكيلها ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا ذاتك عبادة كبري صلاة كبر باري مساجد كبر باري طاعة إلهي كبر باري مسكح ذو مرة سكوت على الناس إلهي
boqol hadduu gaadho ninka yaraanta ku soo bilaaba cibaadada boqol hadduu gaadho daadiisu caqligiisu waa taam 150 hadduu gaadho caqligiisu waa taam 200 hadduu gaadho caqligiisu waa taam laakiin bilaa cibaado qofka hadduu ku barbaaro 60 jir hadduu gaadho maskaxdiisu waa isku daadataa shanqadhi qalow birba ka dhashan qadhi thumma radadnaahu asfala saafiliin baa u taalla lidaalika habeen ka horeysa gabadha halkaa in la qabtaa sunnaa markaa ninkii labadii rakaca markuu kacay iyadna ay daba joogsatay say laba rakaca ugu jireen salaadii fajr baa loogu eedaamay innagana ka warrama habeenka caroosada la soo hooyo dumarka ku yar hadha ayuu caroosku raagsadaa uu leeyahay war kuwan khayrkooga Allah badiye ka soo baxaana soo ma hada ma sha Allah laba rakacadood buu habeenkii oo dhan ninkaas taabiciga Salaat ibn Ushaym rahmatullahi alayhi sidoo ugu jiray ayaa salaadii fajr loogu eedaamay iyaduna waa gabadh caabidada bahay oo saalixad oo sidiisa oo kale una at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ilaahay baa quraanka ku sheegay nin dhalinyaro ayaa nin sheekh u yimid oo ku yiri sheekh gabadh wanaagsan oo dabeecad fiican oo diin fiican ayaan rabaaye sideen ku helaa ii sheeg buu ku yiri marka sheekhi baa ku yiri adigu haddaad noqotid addoon ilaahay oo wanaagsan addoonta ilaahay oo wanaagsan ilaahay baa kuu keenay adu wanaagsanow soo gabadh wanaagsan ma doonaysid haa gabadh diin leh addunya mataa wa khayru mataa'iha almar'atu as-salihah soo nabigu ma oran nolosha adduunyadu waa raaxo yar raaxada yar ee adduunyadana waxa helay buu nabigu yiri ninka ilaahay uu ku hagaajiyay gabadh wanaagsan oo diin leh soo ma doonaysid inaad hesho gabadh wanaagsan haa haddaba adu waa inaad noqotaa addoon ilaahay oo wanaagsan marka ninka nin wanaagsan buu ahaa ilaahay waxa uu keenay gabadh wanaagsan oo habeenkii dhannaa salaat al-leylki iyaduna aanan oran aadaankii fajr ka dhacay oo ka baxay aqalka ila masjid subaxdii ba haweenkii ba u yimid caroosadii bal waran waana la ogaanay inuu yahay nin caabid suufi oo aanu jeedin dumar markaas ay ku tiri salaadii aan galay ba ka baxnay tiri aadaankii fajrka iska daayin laysa salaame salaadii aan xiranay labadii rakacadood aadaanka fajrka naga bixiyay tiri isagii baa la qabsaday markaa oo leeyahay warninkaagan khayr Allah ku siiye xal aroosada xaleetooda aad sida ugu gashay wuxuu yiri inninkaaga gardaran buu yiri markii u horeysay xamaam baad gelisay oo ugu tiraadeen biyaha kulul ku maydho biyihii kulul dhulka qabooba moogtay biyo kulul baa loo dhigay biyihii kulul markaan isku shubay buu yiri naartii baan xasuustay buu yiri cadar iyo dhar cusubna waadii iibiseen oo waadii geliseen cadarna waadii mariseen qol waxaadii geliseen gabadh qurux badan oo la diyaariyay ay dhex taalo qolka markaan galena jannadii baan xasuustay buu yiri labadii rakaca markaan xidhay buu yiri jannadii iyo naartii sidaan uga fikiriyaa salaadii fajr loogu eedaamay buu yiri qulubteena Allah inoo nuuriyo salaadii fajr baa loogu eedaamay طول الليل wuxuu ku jiray laba rakacadood mar uu aakhirada mar uu janno xasuusto iyo mar uu naar xasuusto تفكروا في مخلوقات الله سمعين حديثك ولا تتفكروا في الخالق فتهلكوا النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقات كإلهي ايغب النبي يري بأن كفكر ابو النبي عليه الصلاة والسلام لكن إلهي ذاتي سها كفكرنا حداد إلهي كفكرتان وترادان إلهي إساقا يا سميي وهذا لك سمي سابو رسولك يري لأن الشيطان كأورنا كان يا أبو ري الله خلقي يا أبو ري الله كلا يا أبو ري الله مركا قدام بيس الشيطان كأورنا يا إلهي إساقا يا أبو ري مركا وحاتر آدم النبي يقول إلهي كما قال الشيطان وحاتر هذا لا إله إلا الله هذا وهذا خرستا سورة إخلاص كأخرستا لذلك النبي وكيلها مخلوقات إلهي كفكر أبو النبي عليه الصلاة والسلام لكنها كفكر إلهي خلق ذات ديس مخلوق إلهي كفكر ومحي
كل حادك الله دم يسترئ لأن إلهي حصوصه كل حادك لغا ناقص لأن إلهي حصوصه كعبد لأن إلهي حصوصه كمدو لأن إلهي حصوصه كفقير لأن إلهي كو حصوصه كحنوسن لأن إلهي كو حصوصه كأوبتك اللسيي لأن إلهي كو حصوصه كبلا أوبتك لغدق لأن إلهي كو حصوصه خلقك نودن واحد كده حركيسا إلهي آياتي زيبت كده حركيسا إلهي آياتي كم من البشر با إلهي أبو 4 فقراء 4 أغنياء 4 عافمان لغو ديقي 4 حنون لغو ابتليي 4 فقر لغو امتحامي 4 أولاد الله هجاجيي 4 أولاد لغبيي 4 وحبرشد الله فري 4 وحبرشد لغو أدكيي 4 إسلام لماذا إلهي كو قال ديسي 4 قال لماذا إلهي قدروا قال لما يكون دمانيان قار عقلي با إلهي سي قارن عقلي إلهي كان قاضي قار لحاتك الله دم يستري قار لحاتك با لغا ناقصي ما أركان ما مغلان ما هلان قار بانا السعود وقلنا وجيفا قار با أقون كستيليين هذا فقراء قار با أقون هلهين هذا إلهي كدق أغنياء يمال قبينو فقال لنا ان dadka aqoonta la ugu maal badan mise dadka aqoonta aan lahayn ya arko ugu lacag badan ma jaamiciinta ugu lacag badan mise dadka aan jaamacada soo dhigan ka jawaabade dadka waxba soo dhigan ugu dhaqaale badan dan yaro arday aan arkay markaa bur sheekh jaamacadayna waan dhameynay shahaadooyinkii waan haysanaa shaqana ma hayno عندنا يروى هذا فكر يبغى العلم قال لا أجي ما يزمن كنا عدة تهيب على السويدية والمركب والرسبة سومالي القبيل بلغوها لاجيه مركز يعني دبلوم كان وقال تعال براتي وقوني أرزاقنا قوني شغلكم عليه وقال تبرأ لما ديد لنا بحبرته إنا بختار نقطة لما ديديو إنا إنجنير نقطة لما ديديو إنا مارتاني بروفيسور نقطة لما ديديو إنا معادن تعرض صلى الله صباح النظرة لما ديديو لكن أقونتنا واقوني أرزاقنا واقوني أرزاقنا مركا يا بحي waxbarashada baranaysid iyo arsaaqadaada cilaaqa kama dhaxaysi ugu habeenkii ilmaha yar 120 habeen uu jiray calooshooyadii uu marxaladaha uu marayay nabigu sheegay 40 ka hore buu nabigu waa nutfax 40 ka dhaxana buu nabigu waa calaqa waa xinjir yar oo dhiiga 40 ka ku xigana buu nabigu waa waslad yar oo hiliba dana 120 ka markuu jiro ayaa malaga loo soo dhiibaa ruuxda oo la yiraahdo ku afuuf habeenkaas 4 shay ilmaha caloosha kale loo qoro 4 shay arsaaqadiisa habeenkaas la qori buu nabigu intuu cunayo ajashiisina habeenkaas la qori maalintuu dhimanayo labiyo dhidig midku ahaanayna habeenkaas la qori ahla an-nar ya ahla janna midku yahayna habeenkaaba la qori buu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam ku salli rasuulka arsaaqadaadii habeenkaaba la qoray intay tahayna ilaahay waa ka qariyay inta adduunyada ku noolaanaysa habeenkaaba la qoray inta jireysana waa laga qariyay bal ka warrama sidee noloshu ay noqon lahayd haddii ilmo kasto inoo dhalanaya uu noo dhalan lahaa asaga oo taariikhda uu dhimanayana halka ugu qoran tahay sidee noloshu noqon lahayd bal ka jawaaba oday baa inaan ku oran lahaa adeer de mabruuk waan maqlay inay wiil aad ku curatee adeer waa mabruuke laakiin 2022 bisha 22 igu dhimanayaaba ku qoran buu maxaa la sameyn lahaa bal ka warraba taariikhda dhimashada laga qariyay baa raxmadaba walow 100 sano kadib haddaan lagu qori lahayn inaad dhimanayso oo halkaa kaaga qornaan lahayd walwali walbahaari murugba ku sii dili lahayd
لكن إلهي وكريم وكقرية سدوا أجش هذا وقرية أي أرزاقنا إلهي كوقرية من مالنت دلتي إلى الضمان يسوي الدنيا البيئة يباد يبريس يهلب يعاني يهواء كل هاي هذه اللي قصين لها كيف دقل لها بالشيك إن صب خرب ضد عن لها ما يلتين الله شو حركات الله شو واحد معاك ندق كل هذا أي أجشنا والله قرية أرزاقنا والله قرية مركزها ولما لغو شيغو لغا يري ارزاقدادي يقونتاد اسku ma xidhno sidii ninkii nabiga u yimid yiri labanana walaalo ay ahaayeen midna farsamo yaqaan buu ahaa midna masjidka nabigu fadhin jiray oo nabigu cilmiga ka reebi jiray calayhi salaatu wassalaam marka kii xirfadlaha ahaa magaalada u shaqo tagi jiray ayaa nabiga ku dacweeyay calayhi salaatu wassalaam wuxuu ku dacweeyay walaalkii rasuulullah daaniga baa soo tabcaya buu isaguna halkan masjidka buu fadhiyaa wuxuu nabigu ugu jawaabay la'allaka turzaqu bihi bukayri la'allaka turzaqu bihi waxa xaqiiqa ah oo dhab uu nabigu leeyahay in arsaaqada ilaahay isaga kugu siinay fadligiisa tawakkulka tala saarashada ilaahay uu tala saartay اعتكافك مسكيتك وكجرو برشد إلهي دينتي سأبرنايو تقوى مسكيتك كل صحيح ريسي أيا الله يا أرزاق دين إلهي كوقف ضيديني معنه قوية صلاص أقول تمر الدينينو وانبرنينا أقول إيوه الله برتنا مدينينو لكن وحنو باهنا قفك وحبرنا يا إنه مركو الرسول ونقضى قف إلهي سيقانا دكتور إلهي يقانا إنجنير إلهي يقانا تاجر إلهي يقانا مسؤول إلهي يقانا فقير إلهي يقانا عاقل إلهي يقانا أغاس إلهي يقانا وأنا نقطة قف إلهي يقانا ننتاجر أو قناع صداع أيا جماعة كزيارة حفيز كيسي شاشد وين باهرت الله حفيز كست أو شغاليه سؤال فرديان كاميرا بودو سرون هالكابو كلا صعدا سفي عن هذا الكابو دقيست مركز جماعات دي كل كي حديثين بيكون هذين شاشدنا كل بمر إيه يصير تذكر الدحس السعودان وحلو الشغاليه بان هالكا شغالها يجيب هالكا كلا صعدا بودي وقبلها بكون جري محاد قبلها أو خاوسي بودي من مركز قارك وسمضها بكذا عيسى وحولي سكال أو لجو آمنة مجرتو كاميرا قابل كبقيان لأن حولها يجي الشقة دي بين نبض قال يسبوري نقدرت كم حوك آمسية هي مركز وشقين يا أردن وتوب إني وإدعان كاميرا قا waxaan u wada dul dhigay waa in xoolahaygu ay badbaadaan saas uu ka aaminsan yahay Soomaa hinde wuxuu ka aaminsan yahay waa tuug qof la aamini kara ma jirto idba mid sida ku dadka maanta wax la aamini kara ma jiro buuri ka meel u dhibtay uu ku dhacayaa buuri tayib shaqaalihiisi qof kamida ayaa maalin isagana meel lagu la kulmo markaas lagu yiri maalin baan serviceka kugu soo maray iyad u shaqeysaa shirkadda ma ka shaqeeyaa imsa sana ka shaqeysaa 7 sano lacag muxuu inisiyaa inta maalinta shaqada bilowday ilaa 7 sano lacagtaadu ma inta un baa waa inta oo nima biiriyo sanad kasta wuxuu nagu yiraahdaa waa ni biirin noomana biiriyo ballan kasta sanad walba ballan buu noo qaadaa ballanna ma ilaaliyo waana been ala bay yiraahdeen iyakii shaqaalihii waxay isaga ka aaminsan yihiin waa been ala ninkaas isagii iyaka wuxuu ka aaminsan yahay waa tuug haddana ninkii maalin dambaan aragnay bal warano ma fiicanto shirkadii way kacdo waan xidhay buu yiri maxaad u xidhay wax dad waan aaminaan weynay buu khalaas dadkii amaana ma la buu yiri waxa laga yaabaa dadka u shaqeynaya oo dhan inay jaamacada ka soo baxeen
isagana inuu jaamacad soo dhigtaan laga yaabaa laakiin ammaano qofka inuu yeesho inuu ballan buuxiyo uu noqdo inuu rusheego uu noqdo inuu cadaalad falo uu noqdo inuu dabeecad wanaagsano uu noqdo ma dibloom bay u baahan tahay mise iimaan bay u baahan tahay bal ii sheega iiga jawaaba qofku inuu rusheego noqdo uu ballan buuxiyo uu noqdo ballan ilaaliye dabeecad wanaagsane cadaalad sameeye إحسان سمية إنه نقضه ما الدبلوم مو باهي هي ما نقاش ولي جامعة اللي يرينك كالصباحة وحنا نقول نين أمانة حافظة نين رشيقة نين بلنبوحية نين عدالة سمية ما نقاش ما جرتها جامعة عنكاس ما جرت ويجرتها وجامعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحجك السعودة ayaa waxay arkeen nin marka aad u soo socdo faraska aad u soo eryanaya marka Umar ibn Khattab baa eego wuxuu yiri ninkaasi kulay anaku noo socday joogsada buu uu joojiyay Umar ciidankii ninkii oo aad u daalan oo aad u naxsan baa marka Umar soo gaaray Umar hortiisu ku dhacay Umar baa marka ku yiri manin cadow eryanayaan oo cabsoonaya ayaa tahay oo ku magan gelinaa mise nin dayn lagu leeyahay oo daynkii bixin kari waayay oo u baahan in la caawiyo ayaa tahay mise nin naf bini aadana soo gooyay oo xaq darro ku soo dilay baa tahay markaasuu intaa midna ma yihi buu yidhi waxaan ka imid buu yidhi Basra ayaa ka imid Basra waa magaalo ku taal Ciraaq Abaa Muusa al-Ash'ari baa halkaa amiir nooga ahaa haye halkaas anoo joogu dambi iga dhacay oo dambiga ka dhacay muxuu yahay khamri baan cabay buu leena Abaa Muusa al-Ash'ari baa intuu qabtay buu iga jaray buu xadku imariyay haye timihiina uu iga xiiray haye farasna intuu igu qaaday buu magaaladii Basra i dhaxmariyo wuxuu yiri ninka hal cunina oo hal fadhiisanina oo hal saaxiibina oo ka dheeraada buu yiri wajigeygii biga madoobayay buu marka naftaydii saddex mid bay igu sheekaysay inaan sameeyo imma inaan Abaa Muusa al-Ash'ari intoon gaado aan qoorta ka gooyo imma inaan gaalada intoon iskaga biiro waxay cabayaan aan la cabo waxay cunayaan aan la cuno iyo kana aan ka mid noqdo imma inaan adiga ku imaado iga qabatid amiirka muuminiinta marka Umar ibn Khattab ayaa yidhi radiyallahu anhu inaad ii timiday ilaahay baa ku waafajiyay buu yidhi inaad gaalo u tagtaa ha yeelin inaad Abaa Muusa al-Ash'ari isagana intood aad u dhumata aad dishaana ha yeelin mar haddaad aniga i soo gaadhay buu yidhi aniguna arrintaada haddaan shaqo ka qabanaya buu hawsha waan qaban buu yidhi warqad buu qoray warqadda nin kale Cumar uma dhiibin isagii buu warqadda ugu dhiibay isagii كله أمير المؤمنين عمر أكتسان كسعوداء وكسو سلام عليه عاد كنت هذا حداد أمير كاغي أنا هاي وقد يكون قرنت هاي وحق أن كقولها أبا موسى الأشعري وقدرين يسد وقد نكا وكو كان يدقيسو قابل بسو أمري وصال نقد نكي عمر ولما نكي مسيدين فرس بوسي لعب بوسي ضرب بوسي كلكم مدة ولبنا أوهيي أيود هذا بايبك سعوتن بصرة يوم مركا ويم دابا موسى الأشعري أو خطبة دينية مركز أمير المؤمنين عمر باي صادري عجيب مستحق وكسو سلامي ورقد أنا ويسو ديبي آخر سبو كيدي ورقد ديبو آخرستي نكا فرس كاكا صار magaaladii aad la dhaxmartay marka hore la dhaxmar aad ku tiraada la fariista la cunteeya la saaxiiba waa walaalkiin oo toobad keenay toobadu adoonka Ilaahay bay ka dhaxaysaa wixii horeen hadal iga dhaco dhan waa ka noqday ee walaalkiin ma aragtana cafiya anoo nafiyade Abaa Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu sidii amiirkiisu uu ku amray buu yeelay halkii intuu ninka ugu yimid madaxa ka dhunkaday faraskiisii buu saaray
magaaladii uu sidaa u soo dhexmariyey waa walaalkiin oo toobad keenay Umar bin Khattab uu tagay Umar buu fariinta inooga soo qaaday walaalkiin la cunteeya oo la fadhiista oo la saaxiiba oo la sheekaysta oo la noolaada waa taadnimadu mas'uul ilaahay garanaya dhakhtar ilaahay garanaya injineer ilaahay garanaya professor ilaahay garanaya malqabeen ilaahay garanaya faqiir ilaahay garanaya Abu Hurayra radiyallahu anhu gaajo daraaddeed masjidka nabiga marka salaada laga dareero ayuu iridda nabigu ka baxayo ku dhici jiray niga reer miyiga magaalada Madiina ku cusub ayaa intuu isku dul taaga oran jiray warmaad warantahay meesha ka kax marka uu oran jiray ma wali Abu Hurayra wuxuu leeyahay wali ma waxa la jiifay gaajan la jiifay buu yiri Umar baa yimiday markaas Umar ku yiri aayada Quraanka halka aayada Quraanka ay ku soo degtay Umarow markaas Abu Hurayra wuxuu yiri marka Umar aayada Quraanka aan weydiinayay garasho la'aaniga ma yahay waxa iga ahayd Umar wajigaaga intuu soo fiiriyo gaajada wajigaaga ku taalay intuu eego ha garto oo ha ku yiraahdo Abu Hurayra gaaja ku haysay kaale ila soo xaraado ila soo cashay imuu fahmin aayadii buu iga jawaabay buu yaalka ku soo degtay hadana Abu Bakar baa yimid Abu Bakar wadna bal aayada iga jawaab halkay ku soo degtay Abu Bakarna ima garan oo ima fahmin aayadii buu iga jawaabay buu yiri waa Abu Hurayra baahi baa haysa saddex maalmood saddex habeen afkiisa cunto ma gelin hadana Abi Bakar iyo Umar inuu baahi u sheegtay ay ku qarsanaya inagana abaar oonan iman baa dadku abaar sii sheegaan waxay noqotay gaajid wax lagu baac mushtari moogta Soomaaliyeed xanuunka waaga dhawata la buumbuurinaya adduunka la sheegay mashruuc gaalo innaka banaguma socdo xanuunkaas naguma socdo uquba meel kale ku socota hadaad u yeerato ka waran adigu halkii bariyii hore dadku oran jireen balaayo markay maqlaan meelay balaayo ku dhacday ayaa laga alla bari jiro la oran jiray balaayo bayb eemkana maanta maxaa la leeyahay balaayo soo bayb xanuunka annaka intaaba nagaga dhacay intaaba ka bogsatay intaaba u dhimatay waxaad ka sheegi muuminku balaayo ma sheego muuminku nicmada ilaahay buu ka sheekeeyaa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ni'amta laga sheekeeyaa balaayada lagama sheekeeyo balaayada waa la qarsadaa haddaad balaayo kugu dhacday aad ka sheekaysid waxay ka dhigan tahay nin ilaahay ka cabanayo le ilaahay baa waxa uu dhibaato igu sameeyay ayaa iga qabta ayaa ilaahay ka qaban war ma hay'ad baa ilaahay ka qaban bal sheeg muuminku balaayada ma sheego Abu Hurayra gaajadiisii Umar uma sheegin Abu Bakarna uma sheegin oo qarsanayay laakiin wuxuu basiiro farsamo leh ay wajigaaga bal kolkay eegaan ha ka dareemaan oo ha ku yiraahdaan Abu Hurayra marka hore aan sufaada hayde oo magaalada Madiina qareen iyo qarabo kuma lahayne waad gaajootay in mari ha ku yiraahdaan iyakiina ma fahmin walaakiin nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam markuu nabigu igu soo baxayba halkaas nabigu ka fahmay halka Abu Kafan ya Abu Hurayra qaal aawaniga ila soo cashay buu ka yiri qaal ila soo cashay koob aanu nabigu ugu yimid reerkiisi koob aana aya la koob aana ku yeela nabi Allah ya Abu Hurayra masjidka ku noqo ahlu sufiyo dhan inoogu wadeer aawa aana ila cabane wa koob aana Abu Hurayra nabi Muhammad hadalkiisa ma oran karo laakiin niyadan ka iri buu yiri koobkan caanaha adigoo ma kugu fiicnaaye miya lagu dhiiba ha ku cibaadaysatid laba habeene ahlu sufuuna waa ragaad garanaysid masjidka deganaayo ayaga laftigooda maalmeed waxba xunin de kulay nabigu kolka u yeero ay yimaadaan ay fariistaan aduu koorada Abu Hurayra caanaha qaado siisi ka u horeeyo la siiyo himin laakiin nabi Muhammad hadalkiisa may oranayna way u yeeray aqalkii markay fadhiisteen sidii uu ka maleynayay meesha u dhacday ya Abu Hurayra buu nabigu koobka caanaha qaad ninka ugu horeeyana u dhiib hakana qaadin buu ilaa isagu ku soo celiyo mooyaane koob caanaha raga loo yeerana waa ragee ahlu suf
kii horeeya markaas uu dhiibay waan eegay waxaanu halkoogii jooga kii kale aan u dhiibay halkoogii 97 nin iska dhig markaasuu nabigu yiri Abu Hurayra ayaa haray sheeg yaa rasuulullah adigi aniga hadh fadhiiso adu cab waan cab ku celi hadda waan cab ku celi ila aan iraado ilaaha xaqqa kula soo saaray baan ku dhaartay aanaha meel ay caloosheeda ay ka maraan oo banaan hadeeto ligu mahadi marigu dana markaasana hambadii uu nabigu qaatay hambadii uu nabigu alayhi salaam waxaan ka wadaa fuqaradoodu baahi way qabeen laakiin baahidooda ma sheeganayn baahidooda iimaanka daboolay wallahi waxaan u baahanahay maanta ummadda in iimaanka loo dhiso ummadda in ilaahay lagu xiro ummadda in aakhirada loo jeediyo ummadda in diintooda macaanka diintu ay leedahay loo sheego taan maanta u baahanahay waa taas sucaad ma noqonaa mise cubbaad baan noqonaa bal kala doorta يا وديار النقطة داعي عابدا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل دعا إلى الله دعا به الرسا قم فأنذر به الرسا وعمل صالحا ولا دنبيسي هذا كاه الريا صلاة دا كحكتا دعوة دا الرسا عمل كوناكسن با كحكا نبي بأدونك إيمانيا رسالة الله سودي بيا دعوة بلابيا دعوة مركو بلابو أيها أمد الدين توصل جيسانيسا مركزا مجتمع نرشد الدين كموغانيسا لذلك دعوة أساس كدين تين الإسلام كويان دعوة الله هلو أيها أمد الدين تجعلان لأن الدين تين برتان وأي كو عمل فلان وأي كو دغمان مركزا أمد الدين تمعانك قدر إن شاء الله هذا الدين تدل كيجا وقتنا مالكنا دقالهنا عقلنا عمرنا إن الدين تجشنا سعودي رومنهن والله دعوة ونحريس دعوة والرحمة أمده مساجد الله بيرا والرحمة أمده قرآن الله برا والرحمة أمده علمك الله برا والرحمة أمده مساجد الله بيرا والرحمة أمده إلهي حقيس الله بيرا وضدك السدودي war haddii magaalada oo dhan wada fooqaq laga wada dhigo oo wadooyinka oo dhan la looga dhigo muraayado oo wadanka oo dhan qof aan shaqeyn la helo oo dadka oo dhan wada shaqeeyaan laakiin dadkii ay been ku macaamiloodaan oo khiyaanadii ay badato oo amaanadii ay yaraato oo qiibadii ay badato oo dulmigii uu bato oo zinadii ay badato oo fisqigii uu bato oo fujuurkii uu bato man horumarnay mise waan dib u dhacnay بل يجي جوابه داره بان بسني ودوينكي بان بسني مشاريع هرمرنيت بان سميني جامعاته بان بتي خريجينتي بان بدتي جامعيينتي بان بتي هوتيلدي بان بتي ورشديه بان بتي لكن دتي امانه ملء رشد ماها امانه ملء رن شيغيان بلن ما الالينيان عدالة ما سمينيان احسان ما سمينيان اسم جعلو اسكو دمغني مايان مان هرمرني مسوان هوسو دعني اللي يجي جوابه هوسو دعني إذن هذي أقلديني باديها أيهين on ariya geelaan dhaqanayno on beeraha falanayno laakiin dadku ay yihiin dad Ilaahay yaqaana dad amaano leh dad shar khayr badan dad run sheegayaala dad cadaalada ilaalinaya dad isku naxariisanaya dad isku damqanaya dad xumaanta ka dhiirinaya dad wanaaga jecel oo xumaanta necab haday yihiin waan horumarnay ogaada horumarku maaha dhiska horumarku waa bini aadamka horumar weeyaan diintu marka dadka dhisaysa daacigu wuxuu ka shaqeynayaa dib u dhiskii dadka madaxa marka doorasho soo dhawaato madaxdu marka doorashada galayaan nin kastoo siyaasi wuxuu yiraahdaa wadooyinkan sameynaya mashaariic horumarneed baan sameynaya tacliintan bilaash ka dhigaya tacliintan kor u qaadaya dhakhtarradan badinaya caafimaadkan bilaash ka dhigaya warshadaha ayaa sameynaya arnin madaxa oo oran kara dadkan hagaajinaya ma maqasheen iliga jawaab arba maqasheen nin madaxweynaha oo yiri dadka siday ku hagaagi lahaayeen baan ka shaqeynaya ma dhacda inuu yiraahdo may waayo fannigan dadka lagu hagaajinayo fanniga madaxda ma
وفنك علماء ويان وفنك دعاء ويان وانا تانو باهنا هاي مانتا وتعالنا هاي ويان هل قا حديث بنقصه ختمه يا ألا أخبركم بخيركم من شركم قالوا بلى يا رسول الله قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ما ينيش قابوا النبي يقولي كين ينيقو خير بدن كين ينيقو شر بدن مركز الصحابة دولادن ها ورقابوا النبي يقول كين ينيقو خير بدن وانك خير كيسل الرجاء شركي سنة أمضوا أي كنا بدكش خير كيسل لو رجيا المها عجيبة مثلا الماء يروح كل دفته مرجع ساتر وريه المها عجيبة ما أنت الماء يروح كلا عوري والمها عياد دلي أوديك هبل بعد دلي مركز أوديك ها أوديك أسوا أوديك الخير وأوديك مسكينة وأوديك معقولة وأوديك إحسان بدن مرنا اسفهم واي ميسان وان اللي اسفهمه وان عفس بدن انا جاي بري ارنا دحمرتو ارنتي سي خير لو وناكسن بو كدميي warni gaan shar laga filanaya ma ahine khayr baa laga filanaya inoo geeya kaasay nigu khayr badan buu nabigu yiri ka kalena he waa ka khayrkiisa aan la rajayn ma ilmahaagiiba ilmihiisa wax gaarsiiyay ha ilaahay baa leedahay كابي أرني كاجا شمياها إلهي وحكاسي إلهي بعد يقول الله ده وري الرع وبلغ أن ده حدي لسه فهم بكاس وننتي سؤنا إلا قمن تحي قرنا مجشو قرنا كما بحر شركي سنة إلهي بنكم مكان قال لي ومثال يعني حديث كاسئل وحديث حسنة dadka khayrka badan la nabigu sidaas uu sheegay iyo dadka sharka badan la marka haddaan diinta ka shaqeyno dadka khayrka badan leh ee khayrka jecel ee ihsaanka badan ee dulqaadka badan ee wanaaga jecel ee afiska badan ayaa mujtamaceena ku badanaya haddaan diinta iyo dacwada ka shaqeyni wayno iimaanka hoos u dhacaya taqwada yaraan alla ka baqa yaraan dadna marka waxa kor maraya dadkii khayrka badnaa waxa ka badanaya dadkii kafada miisaanka taariku salaaga xagan hadii la saaro maanta iyo dadka salaada ilaaliya iyo ma badan war kafada taa culus taariku salaaga cuslaanaya Soomaa kafada khayr dadka khayrka badan la iyo dadka sharka badan la maanta mujtamaceena ayaa ku badan meel walba caalamka waxa maxaa keenay waa ka shaqeyn la'aanta aan diinta ka shaqeyni weynay ayaa dadnimadii hoos u dhacaysa hoos adduunyadiina kor baa u socotaa maanta marka ilaahay kuwa diinta ilaahay u dadaala ee barta ee ku camal fala ee ka shaqeeya ee ilaahay khayr ugu khatimo allah inaga yeelo soo diyaar ma insha Allah dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo موتاتكنا الله ونحرسته أمن إيمانك الله إنه زياديو ضد بدن ولاله مسلمين أيا دعاءنا أو مراد له مدور بمراد كيسة ومعسيله هني لايك عنت مديك كسيو ضد بدن بحنو كعبنا يوم قالوا بنوقص الدعاء له وهي حنو سنع في ما سريع الله سيو وهي قرب سنة قرب الله كفيدو أمن إيمانك الله إنه زياديو مسلمين تميلوا جوان موافقين من دمن الله سيو صلى الله على سيدنا محمد